laga bilaabo bishan May ee aynu ku jirno ee 2025 ayaa la faray guud ahaan goobaha ganacsiga ee ku yaala dalka Norway inay waajib ku tahay oo ay qaataan lacagaha kaashka ah oo ay macaamiisha wax uga iibiyaan. waxaana la faray dukaan walba ama xarun walba oo ganacsi oo ka diida macaamiisha inay ka qaado lacagta kaashka ah in ay mutaysan doonto ganaax lacageed oo culus. dowladda ayaa soo saartay sharciyo cusub oo keeni kara haddii goobaha ganacsiga ee ku yaala guud ahaan deegaanada Norway ay macaamiisha ka diidaan lacaga kaash ah ay ganaaxi karto adduun lacageed oo gaaraya ilaa 25 milyan oo koronka Norwejiga ah. wasiirka caruurta iyo qoyska dalka Norway Lena Fagislit ayaa sheegtay in adeegsiga lacagta caddaanka ah ay siinayso ammaan kuwa aan haysan ama aan isticmaalin dijitaalka ama kaararka. waxa ayna sheegtay intaasi ay u fududeynayso, waxayna intaa ku dartay in sidoo kale ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah diyaargarowga bulshada. xukuumadda Norway ayaa sharciga qandaraasyada maaliyadeed ee cusub soo saartay bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ee 2024 ka oo faraya goobaha ganacsiga in aysan diidi karin lacagaha kaashka ah. hayeeshee hadda ayaa si rasmi ah loo dhammaystiray oo laga soo saaray xeerarka kala duwan ee qeexaya ganaaxa lacageed ee ay mutaysan karaan goobahan ganacsi haddii ay u hoggaansami waayaan arrintan. waxaana la socon doonta u hoggaansamidda sharcigan hay-adda macaamiisha dalka Norway. xisbiga Central Party ayaa ahaa xisbigii hoggaaminayay ama uu ololeynayay in sharcigan la hirgeliyo oo uu noqdo in lacagaha kaashka ah ama caddaanka ah wax looga iibsado guud ahaan goobaha ganacsiga ee ku yaala dalka Norway. wasiiradii hore ee cadaaladda dalka Norway Emilia Enger Mehl ayaa sheegtay in sababta ay u adkeeyeen sharcigan ay ka mid tahay korontada ka jirta koonfurta Yurub oo muujisay arrintan maadaama ay noqotay wax aan suurtagal ahayn in lagu adeegto oo lacagaha lagu bixiyo kaararka ama taleefanada gacanta. waxay intaa ku dartay inay jiraan dad badan oo waayeelo ah iyo kuwo kale oo bulshada ka mid ah oo ku dhibaataysan isticmaalka ama aanan aaminsaneynba xalalka dijitaalka ah, waxayna u baahan yihiin inay isticmaalaan lacaga kaash ah ama caddaan ah sida ay sheegtay wasiiradda. halka ay wararka ugu doorkaraan maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.